بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ducada 13aad ee silsilada duco iyo dareen. ducadani waxay ka mid tahay duco dheer oo nebigu calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliimu ku ducaysan jiray. qaybtan yar ee kooban ayaan kasoo qaatay ama aan kala soo baxay. qaybtani waxay odhanaysaa allaahumma zayinna biziinati aliimaan wajcalna hudaatan muhtadiin. oo macnaheedu yahay allaahumma allahayow zayinna ilaahow nagu qurxi. ziina waxaa la yidhaahaa wax kasta oo ruux uu isku qurxiyo ama isku bilo oo dushiisa laga dheehan karo loona khushuuci karo. waxyaabuu ilaahay subxaana watacaala bani aadamka ugu mana sheegtay waxaa ka mid ah inuu usoo saaray hu ama dhar ay ku labistaan oo isku qurxiyaan oo ceebahooda ay ku qariyaan. waxaa kaloo uu soo saaray waxyaabo waxaweyaan ay ku raaxaystaan adduunka dushiisa oo manaafacaad fara badan naftooda iyo ruuxdooda ugu filan oo uu xalaal uga dhigay. ziina marka waxaa la yidhaahaa wax kasta oo qurxiya ruuxa bani aadamka ayaa ziinad la idhaahaa, ama dusha ha iskaga qurxiyo ama special occasionska iyo xaalaadka waxaweyaan ixtifaalaadku markay jiraan ha isku qurxiyo. ziinad waxaa la yidhaahaa waxa la isku qurxiyo. فدعاء محي لهذا اللهم الله يو زينا واحد ربو نقو قرحيسا بزينة الإيمان قروح ذا إيمانك. محي كديغانتها إله قروح ذا إيمانك نقو قرحي. وحي كديغانتها إله إيمانك قلوب تيدا إيكاش يدا الدقني وحويا حاصلة أو قروح بدنا ذا لدرجة ودبد أصوبحو أو دوش يدا لغديهدو دوش يدا لغديهدو مركا إيمانك قدا حاجة دقن أما كشاد إله سبحانه وتعالى كوبيري وعقيدة صحة وحويان fundamentally وحويان وكفرديو waxaad noqonaysaa qof yaqiin leh, qof thaabit ah oo waxaweyaan dabeelaha noloshu ayna marba dhinac u riixin, qof cid waliba aanay maskaxdiisa iyo maankiisa khalal aanay gelinin, qof allahuma salli calaa muxamede aan si fudud waxaweyaan shubahaadku u leexinin ama u leecinin, qof shirkiga iyo waxaweyaan masaa'ibta ku dhacda qalbiga aanay waxaweyaan saameyn ku yeelanin ayaad noqonaysaa. qof carabkiisu uu dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay iyo weyneynta ilaahay uu ku mashquulsan yahay ayaad noqonaysaa. ومع هذا wanaagaas iyo xasiloonidaas iyo spiritually inaad tahay qof balanced ahoo waxaweyaan dheelitirani dushaada laga dheehanaya, shakhsiyadaada laga dheehanaya, falcelintaada laga dheehanaya, dabeecadaada laga dheehanaya, dad la shaqayntaada laga dheehan karaa. waxyaaba maanta dadka inay qofku qof xasiloon yahay iyo in kale lagu eego ama lagu miisaamo waxaa ka mid ah caqiidadiisu siday tahay, wuxuu aaminsan yahay. qofkani ma aaminsan yahay awood ka weyn oo ka ballaaran oo waxaweyaan ka baaxad weyni inay adduunyadan iyo maamulkeeda gacanta ku hayso. marar fara badan marka uu ka bixi waayo hogga warwarka iyo walbahaarka iyo urugada, waxyaabaha ay sameeyaan dadka la tacaamula xanuunada nafsiga waxaa ka mid ah holistic approach waxa la yidhaaho ayay qaataan. qofku waxay ku waarsadaan ma aaminsanta maxay tahay caqiidada aad aaminsan tahay, si markaa ay u helaan meel ay dib ugu celiyaan oo rajadiisa ay kasoo aloosaan. marka sababtaasay muhiim u tahay in aynu ku ducaysano ducadan oo nidhaahno ilaahu iimaanka laabteeda iyo kasheeda aad ku beertaa awood halahaado, awooddaas oo dabadda laga dheehan karo oo na qurxin karto oo na qurquri karto oo qofnimadeeda waxaweyaan laga dareemi karo iimaan qawiya oo aanu ku dhacaynin waxaweyaan leexleex iyo wareer si fudud aanu galaynin. ilaahu kasheeda ku beer ayay ka dhigan tahay. marar badan qur-aanka waxaad ku aragtaan ama aad markaad akhriyeysaan in badan carabkiina kusoo noqnoqoto walibaasu taqwa dhalika khayr. yacni wax qof ilaahay subxaana watacaala taaj uga dhigo oo u geliyo oo dhar uga dhigo waxaa u qiimo badan taqwada ayaa u qiimo badan. qof awareness leh, qof soo jeed leh, qof iimaan leh, qof waxa khaladka iyo saxda ay u kala muuqdaan, qof wax qabanaya ay jiraan, qof values leh inuu yahay qofku. marka ducada qaybteeda dambe waxay leedahay wajcalnaa ilaaha waxaad naga dhigtaa hudaatan
kuwa iyagu horta marka ugu horeysa hadaysan, iyagu hadaysan oo toosan, hadaysan. Hidaayadda marka luuqad ahaan loo eegayo ama loo macnaynayo linguistically waxay noqonaysaa toosnaanta in uu qofku abbaari karo wixii laga rabo ayaa la yidhaahaa waxa weeyaan hidaaya. fa ilaahow toosnaan iimaaneed yaa oon adigana kugu garanayno nafahaygana xaqii aada u soo saartay iyo ujeedkoodii aanu ku gudan karno na sii. hidaayaddu waxay noqon kartaa ama marar badan loo kala qaadaa hidaayad qalbi ah iyo waxaa jirta hidaayad camaliya. hidaayadda qalbiga ahi waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu watacaala uu iimaanka qalbigaaga ku sugo, in uu yacni kugu ilhaamiyo fidrada saliimka ah in sidii ugu talagalay aadu adeejisid. hidaaya caama baa jirta oo ah in ilaahay subxaana watacaala wax kasta oo uu abuuray adduunkan dushiisa, geed hadday tahay, shimbir hadday tahay, iyo quraanjo hadday tahay, iyo hadday wax kastoo noola ah inuu hidaayad uu siiyey ama uu ku toosiyey oo solonsiiyey wixii dantooda iyo manaafacaadkooda ugu jiraan. oo in badan qur-aanka waxaad ku maqashaan ilaahay subxaana watacaala markuu ka hadlayo xataa xayawaanaadka in qadara fasabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawaa waaladii qadara fahadaa. marka waa hidaaya caama, waa hidaayad guud weeyaan. makhluuqaadka oo dhani way yaqaanaan oo ilaahay baa ku hadeeyey sida ay waxweeyaan cuntadooda u doonan lahaayeen, hadday shimbir lahayd siday u duuli lahayd, siday gurigeeda u dhisan lahayd. hidaayaadka ilaahi subxana watacaala qur-aanka ku sheegay mucjizaadka waxaa kamid ah in ilaahi subxaana watacaala u waxyooday maxaa la dhahayaa shinida inay malabka samayso, inay qaabkaas waxaweyaan u socoto. waa cilmi dhan oo la barto. fa waa hidaaya min allah, waa solansiin ilaahay subxaana watacaala uu solansiiyey. hidaaya qalbiya baa jirta oo ah ilaahi subxana watacaala inuu towfiiq ku siiyo. towfiiqda ah inaad haleeshid xanuunka dhabtaana ilaahay mooyaane cid kale oo bixisaa ma jirto. ambiyadu ma bixin karto, malaa'igtu ma bixin karto, cid kasta oo cilmi kasta lahay siday wax u sheegaysaa ma gelayaan quluubtay u sheegayaan ilaa ilaahay subxaana watacaala quluubta isagaa furayaashaha ee uu hidaayad siiyo mooyaane. sababtaasuu ilaahay subxaana watacaala nabiga ugumana sheeganayo u lahaa inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa. fa hidaayadda qalbiga ah ilaahay subxaana watacaala ayuunbaa bixiya markay towfiiq noqoto. ambiyada waxay lahaayeen socodkay lahaayeen, gaadhsiintay lahaayeen, mas-uuliyaddii la saaray inay iska ridaan bay lahaayeen, cadayntay lahaayeen, in waxa weeyaan ay ummadda u yeedhaan bay lahaayeen. laakiin hidaayatul qalb waa wax ilaahay subxaana watacaala uu bixiyo, keligiisna uu gaar ku yahay. fa hidaayaddu waa toosintaas, waa solansiintaas, waa haleelsiintaas. waa haleelsiintaas. qofku waxaa la siiyey doorashaa la siiyey. ilaahay subxaanahu watacaala wamaa rabuka biطalaamin lilcabiid, cid uu dulmiyaa ma jirto. aqoonta iyo fidrada gaal iyo muslimba waa la siiyey. aqoontii markaa dadkii gaadho ee ay haleesho fidradaas, qofkii doorashuu leeyahay. aqoontii waxa weeyaan la siiyey, cilmigii markuu u raaco, digniintii ambiyadu ay u raacdo, qofkii isagaa dooranaya inuu raaco iyo inuu diido labadaba. markaasaa waxaa ka dhalanaysa hidaayadda ugu dambeysa oo ah in jannadii iyo cadaabtii la kala solansiiyo dadkii. oo waxaweeyaan qof waliba wixii uu shaqaystay iyo wixii uu yeelay iyo approachkii uu qaatay in uu ku xisaab muto. marka ducada waxay leedahay ilaahayow nagu qurxi iimaanka. quruxda ugu qaalisanaad qof siisa waa quruxda iimaanka. ilaahow iimaanka nagu qurxi. quruxdaas ilaa ay dabadda usoo baxdo oo ay saameyso qofnimada, shakhsiyadda, maxaa layidhaahaa falcelinta, ficilka, dadla dhaqanka, adduunye aragga, laxawga, yacni every aspect oo aada leedahay ilaa ay saameyso oy qurxiso, qorqorto qofnimo waxweeyaan nadiifo oo xasiloon
ay kaa soo saarto. wajcalnaa waxaad naga dhigtaa hudaatan kuwo iyagu xanuunsan oo xanuunkii haleelay oo quluubtoodu waxa weeyaan ay xasiloon tahay oo ay fadhido. muhtadiina oo iyaguna waxa weeyaan ficilkooda iyo wanaagooda iyo ixsaankooda iyo dacwadooda lagu haleel iyo hanuun muto. yaama ilaahay subxaana watacaala qof inuu cilmi siiyey, aqoon siiyey, laakiin wixii uu sheega ayna dhagaha ku dhacayn, ayna quluubta gaadhayn, because waxa ka maqan yacni ilaahay subxaanahu watacaala inuuna tawfiiq siinin, carabkoodii siinin ama qalinkoodii siinin. fa ilaaha waxaad naga dhigtaa kuwo iyagu marka hore xanuunsan, waa kow. muhtadiina oo saameynta u cilmigooda iyo aqoontooda iyo yeedhkoodu uu yeeshaana ummadda kale quluubtoodu ay kusoo leexatay, xaqa ugu soo leexato ayay ka dhigan tahay. marka yacni hidaayadii marar badan qur-aanka waxaan ku aragnaa dad hidaayad ilaahay subxaana watacaala xanuun siiyey, xanuun caama la siiyey, laakiin iyagu doortay inay leexdaan. wa amaa thamuuda fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa. waa la hadeeyey, hidaayad baa la siiyey, aspectskii iyo shuruudihii hidaayadoo dhan baa ilaahi subxana watacaala mutawafir uga dhigay, accessible u ah, ambiyaa u timi. fastaxabu alcamaa cala alhudaa, indhala-aantii bay ka jeclaadeen hanuunkii. markaasaa fa akhadathum saaciqatu alcadaabi alhuni bimaa kaanuu yagsibuun. marka ilaahi subxaanahu watacaala inaanu cid dulmiyin markay noqoto mawduuca hidaayadda waxaad ku garanaysaa ambiyada lasoo dirayaa asbaabtii oo dhan buu ilaahi subxaana watacaala mutawafir uga dhigayaa, uu ogolaanayaa basharkii. hadday noqoto inuu caqligii siiyey, inuu fidradii saliimkahaa siiyey, inuu ilhaaminayo, qofkiibaa markaa kala dooranaya, dadkiibaa kala dooranaya. fa ducadaasi markaa qiimahaas ayay leedahay. allaahumma zayinna biziinati aliimaan. ilaah waxaad nagu qurxisaa huga aadna siinaysaa ha noqdo hu iimaaneed oo gudahayaga manbacu intuu noqdo waxweeyaan uu dabadayadana saameeyo. adduunyada gudahayaga iimaanku ha dego oo ha qurxiyo oo ha bilo, dabadana ha nooga soo baxo. wajcalnaa hudaatan muhtadiin. ilaah kuwa iyaguna hanuunsan, ummaduna ay carabkooda iyo qalinkooda iyo waxsheegooda iyo waxaweyaan soo jeedintooda ay quluubtooda hidaayad iyo waxaweyaan hanuun ay ku hesho. ilaahu naga dhig oo yacni saameyn u yeel cilmigayaga, saameyn u yeel qalinkayaga, saameyn u yeel ergayga, saameyn u yeel nasiixadayada ayay ka dhigan tahay. dadka qaar markaad aragtidooda indhahooda dheehatid ama aad presentkooda dareentid ay ku imaadaan ayaad ilaahi subxana watacaala automatically xasuusanaysaa. waa hudaatan muhtadiin, waa dad quluubtoodii ay ka run sheegtay waxaweyaan hidaayadda oo ay doontay u socotay. marar fara badan waxaan u baahannahay adduunka intaan joogno waan ka cakufaynaa, waan dambaabaynaa, waan soo laabanaynaa. yacni bani aadamka lama odhan ha khaldamin, ha kufin. maxaa layidhi markastood khaldanto soo laabo, markastood kufto soo kac, markastood aragta inaad sii xadhig jiidanayso soo noqo. sababtaasuu ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay, waana aayadahan ugu jecelahay qur-aanka, waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana. waa waxyaabaha ilaahi subxaana watacaala ballamaha uu qaaday bay ka mid tahay. cid kastoo arko inay dadaalayso oo nafteeda ay markay leexataba inay soo leexinayso, markay kuftaba inay soo kicinayso, markay khaldantaba inay soo laabanayso, markastay shaydaanku u quusgooyo ama naftu lasoo fogaataba inay waxaweyaan ilaahay xaggeeda u cararayso. ayaa ilaahay subxana wataala wuxuu leeyahy waaladiina jaahaduu fiina, kuwii nafahooda la jihaaday ee struggle la galay ee u strive gareeyay xaggeega usoo laabtay. maxaa nagu ballana? lanahdiyanahum, waa ballan, lanahdiyanahum subulana, dariiqa saxda ayaanu solansiinaynaa. yacni maxaanu u fududaynaynaa? hidaayadii baanu u fududaynaynaa, hanuunkii baanu u fududaynaynaa, quluubtoodii baan dejinaynaa, arwaaxdoodii baanu aqbalaynaa oo soo dhaweynaynaa. jihaadku ma aha jihaadka seefaho kaliya, waa jihaadu nafs waruux. yacni waa jihaad naftaadan gudahaaga ku jirta ayaa jihaadka ugu weyn kaa mudan oo kaa qaadanaysa. faalhamahaa fujuurahaa wa taqwaahaa. gudahaaga mar walba waxaa loolan ku jira wanaaga
iyo xumaanta. naftii way ku jiidaysaa, waad soo jiidaysaa, waxbay arkaysaa, waad kasoo celinaysaa, way kacaysaa, way kufaysaa, way khaldamaysaa, way soo laabanaysaa. marka ilaahay subxaana watacaala waxaad ka haysataa insurance, baad ka haysataa caymis, baad ka haysataa. wuxuu ku leeyahay haddaad soo laabato waan kuu jooga anigu, markastood khaldanto soo laabo. ya ilaahay kama daalo inuu dunuubta dhaafo ilaa adigu aada daashid oo aada fogaatid oo shaydaanku ku qalbi jabiyo oo ruuxdaadu ay quusato oo waxa weeyaan ay naftu beenka ugu sheekaysa mooyaane. laakiin xaashaa in allaale iyo inta aada fursad haysato ilaahay mar walba waa kii diyaar ku ah inuu ku aqbalo. waqul licibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. marka ducadani qiimahaasay leedahay. allaahumma zayinna biziinati aliimaan wajcalnaa hudaatan muhtadiin.